السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسلامتي يا أصحابتك وصاحبني برتب اليوتيوب كان كلنا ما أنت إن شاء الله عشان كينا وحكوسة بسنية هاي percentage profit يولي percentage loss بقول كيفا إمس أيام فائدة يولي بقول كيفا إمس أيام خسارة. إن شاء الله ما أنت عشان كينا هالكاسة وصاف صنابونا مركلة تتكسر دوالة عشان كينا halkani waxaan ugu qoran sidii muuqato percentage profit ama percentage loss. waxaan qaadan doonaa haddii aad iibiso meel ganacsi ama goob yar oo ganacsi ah oo aad iibiso shay boqolkiiba imisa faa'iido. cashirkeena waxaan kusoo qaadanay imisa shaygan ka faa'iido, shaygan aad iibisay imisa ka faa'iiday ama imisa ku khasaartay. maanta waxaan qaadan doonaa shaygani boqolkiiba imisa aad ka faa'iiday ama boqolkiiba imisa aad ka khasaartay. marka waxaan qoranaynaa tusaalaheena koowaad. example 1 tusaalaheena koowaad insha allah wuxuu noqon doonaa haddii aan iibiyo moobeelada ama taleefanada gacanta, haddii ay moobeeladaas igu fadhiyaan 10,000 oo shilin Soomaaliya aan kusoo iibsadaa uula jiraacan waxaan kusoo iibsaday 10,000 oo shilin Soomaaliya laakiin waxaan kusii iibiyey 11,000 oo shilin Soomaaliya. haddaba imisa ayaan faa'iiday boqolkiiba? markaan aan kusoo celiyo tusaale, haddii aan iibiyey qalabka ama moobeelka taleefanada gacanta oo taleefoonka gacanta ugu fadhiyo lacag gaaraysa $10, yani igu fadhiyo markaa la dhahayo meeqa ayaan kasoo baxshay, okay $10. haddii aan iibiyo $11 boqolkiiba imisa ayaan faa'iiday? halkaas ayay ku saabsan yahay. marka laba arrin ayaa kala jirto waa inaad kala ogaato. waxaa jira waxa la dhahayo buying price is selling price, okay buying price waxaa laga wadaa yani imisa ayaan kasoo baxshay, okay imisa kusoo iibsadani. markaad soo iibsanaysid waxaa loo yaqaanaa buying price. imisa ayaan kusoo iibsaday? $10. selling price maxaa loo yaqaanaa qiimaha ama waxa aad gadaysid, imisa aad gadaysaa. haddeerta anaga waxaa gadaynaa moobeelka 11,000 oo shilin Soomaaliya, okay iska dhaaf. waxaa gadaynaa imisa ayaa moobeelkana kusoo iibsaday. buying price waa 10 shilin Soomaaliya. selling price imisa ayaan gadayaa? 11 shilin Soomaaliya. okay waxaa laga rabaa percentage profit, okay percentage profit ama PB wixii loo yaqaan. so qaacida yaraa jirto oo percentage profit lagu helo. qaacidadaasi ayaa waxay tahay okay simple intaada ku qor percentage profit waxaa lagu helaa ama BB usoo gaabsan karta, okay percentage profit ama percentage loss labadaba qaacidada percentage profit waxay noqonaysaa selling price oo laga jaray buying price oo loo qaybiyey buying price oo lagu dhuftay boqolkiiba boqol. yani markaa la helo selling price minus buying price waxaan ka wadaa profit. si fudud waxaa dhigi kartaa percentage profit waxaa loo helaa profitkaaga oo loo qaybiyey buying pricekaaga oo lagu dhuftay 100%. profitka guud usoo raadin doontaa kadib baa buying price u qaybin doontaa. laakiin si fudud qaacidada hal mar jumla ahaan haddii ku diido waxay noqonaysaa selling price-ka oo laga jaray buying price oo loo qaybiyey percentage buying price oo lagu dhuftay boqolkiiba boqol. waxaan iska fududin buying price-ka of Ingiriis waa maahan waxay noqonaysaa waxa intaad kasoo bixisay intaad gadaysid oo laga jaray intaad kasoo bixisay oo loo qaybiyey intaad kasoo bixisay oo lagu dhuftay boqolkiiba boqol. afsoomaalisaas ku noqonaysa, okay ama si fudud waxaa dhigi kartaa intaad faa'iiday oo loo qaybiyey intaad kasoo bixisay oo lagu dhuftay boqolkiiba boqol. haddeertaan aan aragno iyadoo tusaalaheyn hadda aan ku dabaqno, okay anaga waxaa kasoo bixinay telefoonka 10 shilin Soomaaliya, okay imisa gadaynaa? 11 shilin Soomaaliya, okay percentage profit waxay la mid tahay okay percentage profit selling price anaga imisa sana imisa iibinaynaa 11 laga jaray imisa ayuu nagu fadhiyaa 10 oo loo qaybiyey imisa ayuu nagu fadhiyaa 10 oo lagu dhuftay boqolkiiba boqol, okay percentage profit waxay la mid tahay okay
percentage profit waxay lamid tahay 12 laga jaro waa imisa waa hal oo loo qaybshay 10 oo lagu dhuftay boqolkiiba boqol. Okay, simple waxaad dhigi kartaa ibartaan iska bixi inta halaa ka soo haray hal oo qaybi waa hal lagu dhuftay 10%. Percentage profit waxay lamid tahay boqolkiiba 10. telefoonkaasi ay iibinay waxaan ka faa'iidinay boqolkiiba 10. Okay, waxaan ka faa'iidinay boqolkiiba 10. khasaaradana waa isla sidii kaleeto laakiin tusaale kaleeto aan ku celino qaybta profitka kadibna aan gudbi doonaa qaybta losska ama khasaarada. halkani waxaan u qorin tusaalaheeni labaad. marka haddii aad soo aragtay percentage profit maxaa kuu diiday inaad aragto percentage loss? hal mar waxaa rabaa waxar inaad inoo sheego qaacidada isticmaalaya waa isla qaacidadii laakiin jawaabta aad noo soo bixi doonto haddii ay noo soo baxdo jawaab oo minus ah ama negative ah percentage loss aad joogna. Okay, percentage loss aad joogna. intaas si fudud aan kuu sheego yani haddii aad sheegan wax aad ka soo bixisay iyo waxa aad gatay haddii ay badan tahay waxa aad ka soo bixisay waa khasaara ku jirta. taas percentage loss inay tahay boqolkiiba imisa khasaartay raadinaysa. Okay, waa waxaan ku dhahay mobilka dad meeqa ka soo bixin $10 meeqa iibinay $12 waa u jirtaa qofka aqliga hore ayuu ku fahmaa inaad faa'iido helin oo $1 ama hal shilin Soomaali aad faa'iido $1 kana gelin shilin Soomaali ah. Okay, halkaas shilin Soomaali ah faa'iido laakiin haddii aan mobilka aan ka soo bixin $10 10 shilin Soomaali ah aan dib waan u iibino 8 shilin Soomaali ama 9 shilin Soomaali ah khasaara ku jirna marka Soomaali iyo khasaara ku jirna markaas maxaa raadinaysaa percentage loss. hal mar ay tusaale hadda mid la mid noqon haddii aynu iibino telefoonada oo aynu noo soo fariyaan ama aynu ku soo iibsanay 10 shilin Soomaali ah oo aynu dib u iibinay 9 shilin Soomaali ah boqolkiiba imisa ay khasaara. Okay, meeqa ku soo iibisay oo ah waxa ku soo iibsay waxa loo yaqaan buying price imisa ku soo iibinay 10 shilin Soomaali. Okay, imisa iibinay ama selling price 8 ama 9. Okay, 9 noqon. waxaa laga rabnaa percentage loss boqolkiiba imisa ay khasaartay. qaacidadu waa isla qaacidada laakiin haddii ay noo soo baxdo minus arabna inay minus noo soo baxdo arabna. Okay, boqolkiiba intaas ayaad khasaartay. hal mar waxaad noo dhahdaa solution noole percentage loss qaacidadu waxay lamid tahay qaacidada waa isla qaacidada data oo kale oo kaliya. Okay, waa selling price oo laga jaray buying price oo loo qaybiyay buying price oo lagu dhuftay boqolkiiba boqol. waa selling price oo laga jaray buying price. Okay, kaas ka keedarsan oo loo qaybiyay buying price lagu dhuftay boqolkiiba boqol. percentage loss waxay lamid tahay selling price imisa haysanaa waxay haysanaa 9 laga jaray buying price imisa haysanaa 10 oo loo qaybiyay buying price imisa haysanaa 10 oo lagu dhuftay boqolkiiba boqol. Okay, markaa noo sii wad percentage loss waxay lamid tahay 9 laga jaro 10. 9 laga jaro 10 ma ku jarmato brad laakiin marka aad kasto meelaha camal soo gaarto yani nambarada si loo kala jaraayo ma ka jarayso dhan waa iska dhaafaysaa way ka jarmay wax kasta wax way ka jarmaan. Okay, haddii aad arki jirtay 5 laga jaro 10 inay lamid tahay inayna ka jarmin oo diin la doono jiro hadda diin intee ka doonay ma joogo soma. Okay, xisaabta haddii ay tan wax laga jaraayo tan dambaysi ay weyn tahay yani tan damaad ay weyn tahay oo tan hor ay yartaa waa ka jaraysaa xisaabta meeysa siinaysaa يعني taas maxaa uga jeedaa. Okay, hal mar inta wax yar tusaale yar ku tusayo. Okay, waxa uu dhahay 5 aan waxa ka jirta 10 isla waxa arki jirtay 10 laga jaray 5 inay lamid tahay 5 aad ku jirto Soomaa aad maanta waxa la 5 aad 10 ka jar loola waa yaabaysaa ma ka jarmayso laakiin waa ka jarmaysaa sida ognahay labada tiro mid wuxuu wataa minus mid wuxuu wataa plus. Okay, 5 waxay wataa plus u qorsan yahay pluska lama muujiyo calaamada pluska inta ku wataa. Okay, laakiin 10ka minus ay wataa minuska waxa iska la 10ka 5tana waxay wataa plus inta ku wataa keedad inta soo fiir inta kan plus inta ku wataa 10 plus inta ku wataa kan
minus ay wataa minuska ayaa la qoraa pluska lama qoro numberka hadduu number iska qoraya plus ay wataa hadduu uu minus u qornayn okay waxaa leedahay labada number ii kala jar labada number ii kala jar kan weyn calaamadiisii 15 ka jar waa imisa 5 15 yaa weyn 10 yaa weyn 10 maxaa wataa plus yaa qaadanaysa haddana waxaa leedahay 5 iyo 10 samaa 10 iyo 5 ii kala jar imisa soo bixayso waxaa soo bixi doonto 5 يا حالة هاي شيء تمانية وين تمن كوين تمن محاولة مانس كخامسة هذه أي نشان كجنة تمن محاسب بحدونته مانس 5 هذه أي نشان أي نكجنة تمن محاسب بحدونته مانس 5 ده نافنتنا يعني جينيا أوكي حنوضع سؤالين هذا السيال تمن كجر وكجر ده أوكي محاسب بحدونه مانس 1 أوكي minus 1 على الآن minus 1 أو لو قيبي طبعا أو لو لفتي بقول كيبا بقول أوكي إبر إسلامي أنت هلا كسور هل هلا قيبي وهل هلا لو لفتي طبعا برسنتيج لو وصف حالي متى طبعا برسنت أوكي بقول كيبا وحاق خسرتي طبعا أنت خسرت على مدى برسنتيج هنقول ساين halkaasi waxaa noo eeg cashirkeeni aadka u xisaabnaa inuu ku soo qaadanay boqolkiiba imisa faa'iiday iyo waliba boqolkiiba imisa khasaaray waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideen insha Allah ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa inuu jannadiisa nagu kulmiyo haddii aad waxay ka faa'iiday cashiradeeda fadlan ii soo duceeyo laga yaabo in ducadaada ma uu anfacdo adoo dhaxal reebi kara ha noqon dhibta aan la tabin والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.